sheekhow ninka iyo waalidka yaa xaqiisu horeeya haddii ay isku marigu yimaadaan ninka iyo waalidka ninka xaq weyn goorma gabadhu markay reer gasho waalidka gabadha waxay ku wareejiyeen ninkan marka samcu wa taaca xataa markay booqanayso waalidka waxaa jiro xadiisyo badan oo ka hadlaya xaqa uu ninku ku leeyahay xaaskiisa iyo sidoo kale xaqa ay gabadha ku leedahay ninkeeda. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddii aan ogolaan lahay qof inuu qof kale u sujuudo ixtiraam ahaan waxaan amri lahay haweeneyda inay ninkeeda u sujuudo sababo la xiriira xaqa weyn uu leeyahay. sidoo kale أبي هريرة رضي الله عنه الله كرر النقطة أبو حيري وحال بيدي نبي صلى الله عليه وسلم أبي نذا بقوا يعني أقر بدن مركز النبي عليه الصلاة والسلام حيري بدك كفر حسانين كذا مركو أوفيريو أدع ذا مركو وح أمره كان خلاف نفت هذا إيمال كيسة وحقون عبيهي حديث كان نحط الماما وحيتاي saddex arrimood oo muhiim ah oo nolosha guurka ah. midda koowaad waxay tahay in ay xaasku ninkeeda farxad geliso wajigeeda dabeecadeeda ixtiraamkeeda yacni inay ixtiraam karto mar alaal markuu arkana wajigeeda yacni inay u muusoto oo dhoola cadeyso macnaheedu waa iyo sidoo kale in ay adeecdo amaradiisa marka ay yihiin kuwa shareecada waafaqsan. mid ugu dambaysa waxay tahay iyo yani in aysan ka talin nafteeda iyo hantidiisa si yani ugu xanaaqo. Assalaamu calaykum. gabadhu markay reer gasho waalidka gabadha waxay ku wareejiyeen ninkan marka samcu wa taaca xataa markay booqanayso waalidka odageeday ka fasax qaadanaysa. marka gabadha tan ninkan lagu daray baa oday u ah isagaana xaq weyn. tusaal gabanana waxaa ku garataan cawradeeda hooyi aabba midna tusi ay mayso laakiin odageeda ma ka qarinaysa. waa garteen mustawaha laysu joogo. diinteennu waxay oggolaatay odaga hadduu dhinto in gabadhuu qaba ay dhaqi karto. gabadhuna waa dhaqi karaa odageeda meydkeeda waa dhaqi karaya. nabiga caaisha wuxuu yidhi haddaan aan kaa dambeeyo oon ku dhaqa dembi male. caliy ibni abi taalib inuu faatimo dhaqaan filaya. marka waxaa weeye gabadha waxaa u xaq weyn ninkeeda maadaama ay gabadhii nin leedahay. waalidkuna birigiisii waa halkiisii in la ixtiraamo in la adeeco in dhib idaykii laga ilaaliyo in loo samafalo. birigii waalidka waa halkiisii laakiin yaa xaq weyn hadday noqoto waxaa u xaq weyn ninkeeda.